بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha waa la igana weynaa waana la igana mudnaa waxay heedin odayaal badan oo cabdikariim muruqlaqay uu u weyn yahay loo yeedho laakiin kollayba haddii la yeedhay marka koowaad ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baan u faraxsanahay goobta aynu ku sugannahay oo markii la furay aan waddanka dibaddiisa ku maqnaa marka koowaad waan baarigayaa macnihii markii aan halkaa fadhiyey quruxda iyo wanaagga iyo horumarkaa runtii aynu dhexdiisa fadhinay waa waxyaabaha marka aad aragto aad ku farxayso QETC nin walba ganacsiga iyo hawlaha ama waxa uu waddanka ama adduunka kusoo kordhinaya ninba meel buu ka galay sida aan sheegayo hodheelkaasi wax weyn bii nagu soo kordhiyey QETC iyana kaalin runtii aad u muhiim ahayd oo inaga bannaanayd oo anigu aan dareemi karo waalid badan oo kale oo halkan fadhiya iyo kuwo kaleba ay dareemayaan bay inaga buuxiyeen anu maalintii u horreysay yaryarka aan dhalay aan doonay inaan jaamacad u diro runtii fakar badan iyo waqti badan bay iga qaadatay waxyaabaha u badan ee aan ka fakerayna waxaa ka mid ahaa anigoo doonaya inaan waddan dibadeed u diro waddankeed u dirtaa qaabkeed ugu dirtaa fakalkeed u doortaa marka laga yimaado xiisahooda iyaga iyo waxay xiisaynayaan fakaltiska ama waxa anugu kula talinayo iyada laftarkeedu doorashadu aad bay igu adkayd nasiib wanaag QETC baan la kulmay oo runtii aniga oo in badan wax raadiyey ayaanu iyaga aakhirkiisa leh waxay ii fududeeyeen oo si fudud ii fahamsiiyeen ama ay igu dhiirigeliyeen in waddanka aan carruurtaa u dirayaa uu noqdo waddanka Malaysia sidoo kale waxay ila fududeeyeen jaamacadda aan u doorayo waxaanu in badan ka wada fadhiisanay oo aanu ka wada tashanay facultiska ama maadooyinka ay dhiganayaan marka laga yimaado rabitaanka iyaga laftarkoodu talo ayay nagu lahaayeen marka runtii marka koowaad aad baan ugu mahadnaqayaa wax weyn bay aniga run ahaantii igu soo kordhiyeen anigu intaan carruurta diray tiraba 2 jeer baan tegay Malaysia 2 jeer aan u tegayna waxaan u tegay bal in aan meesha aan carruurta u diray laftarkeeda soo eego jaamacadahoodii soo eego noloshoodii soo eego environmentka soo eego markii aan dooranayay inaan Malaysia u dirana qodobo dhowr oo ay ka mid tahay inuu yahay waddan islaama oo macnihii diinta islaamka ay runtii ta u mudan ama ta u weyn ee laga haysta ay tahay ayaan ku doortay waddan luqadda ingiriisiga oo ay ardaydeena ama ubadkeenu waxay marka inta badan ku dhigtaan ku hadlaya ayuu noqday sidii la sheegayay waddan xagga amnigiisu uu aad u sarreeya ayaa iyana muhiim ahayd waddan xagga tiknolojiyadda iyo aqoonta aad uga hormaray ayaa isna ahayd waxyaabihii aan ku doortay markii aan tegay runtii waxyaabihii aan marka hore doorashada ku sameeyey oo dhan waan soo taabtay ardayda qaar badan baan la shiro waalidkood qaar halkan fadhiyaan oon casuumadu sameeyo wixii dardaaranana soo siiyey markaa runtii waxaan odhan karaa QETC waxay inoo gashay kaalin aanaynu qiyaasi karin qiimaha aynugu leedahay cabdilaahi iyo sayid iyo dhammaan tiimka waxyaabaha ay dadka dheeriyiin waxaa ka mid ah mar kasta oo aad communicate garaysa ama aad la hadasho waa dad responsive oo kuu jawaabaya oo kula talinaya oo haddaad canaanata xitaa aan kaa cadhoonaynin ku soo dhaweynaya kula talinaya waxa saxda ah kuu sheegaya 24 saac heegan kuwa markaa runtii aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ardayda meesha la geynayaa kullayba iyadoo wanaaggaas oo dhan leh waa qurbe waxay u baahan yihiin ka warhayn badan adoo halkan joogaad ka warhayn kartaa waayo adduunkii marka uu fududaaday
jaamacadda abkeeda abs bay ay siiyaan oo halkaa kala socon kartaa resultska waxaad la socon kartaa wax kasta uu qabanayo waxaad la socon kartaa wax kale iska daayay waxa ay ka cunayaan jaamacadda laftarkeeda ayaad halkaa ka ogaan kartaa maanta wuxuu ku qadeeyaad ogaan kartaa marka waalid ahaan waxaan ku talin lahaa in aad looga warhayo aad loo ogaado tacabka intaa leegda waxaa loo gelinayaa ubadka waxa weeyaan inay wax noqdaan marka haddii maanta inta halkan fadhiday inta kale waalidka ah ee dirtay ilaahay fursad u siiyey ama uu u saamaxay inay ubadkoodii tacliinta heerkaa leh ay gaadhsiiyaan waa fadli dee ilaahay ku galladay marka fadligaa waxaynu u baahannahay inaynu inaguna ku joogtayno oynu ilaalinno waayo ciyaalkaa la diraya ama carruurtaa la diraya dibadaha loo diraya waxay ku jiraan da'da ama ay toosaan ama ay qalloocdaan marka waxaa laynooga doonayaa ama aan waalidka fariinta halkan u diraya qofkii awoodaa xitaa ha tago tigir yarood goosato wax yaroo kaa baxa wax weyn maaha kolley dadkeenu aad bay u cag culisiin oo ma jecla safarada laakiin anu waxaan jecelahay ama aan ku talin lahaa inaynu mar walba gaadhno ragga qaar baanu ku ballanay maalin dhoweyadoo la soo hadlay nin walba aabihii intii aan gaadhi karayay waan la soo hadashiiyo war ninkii waa fiican yahay hebel waa fiican yahay halkaasu maraya waanu wada qadaynaynaa sawiraan usoo diray anagoo ku wada jira marka ragga qaar baan oonu aad isugu sii dhownay baan ku uri wari hadda dhowr bilood kadib baad imanaysaa hadda intii aan ku soo idhay ille ayaad ku soo odhanaysa marka waa ciddii awoodda ciddii aan awoodinna de waa mar walba telefonka iyo adduunku wuu fududaaday oo maalin walba ilmahaagii video baad ku arki kartaa marka waxaan ku gabagabeynayaa QETC kaalin weyn bay noo buuxisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay amniga iyo quruxda iyo horumarkaa ha inoo wanaajiyo waxa aynu halkan caawa shirkayna uu kaga duwan yahay sharar badan oo kale waxbarashaynu ka hadlaynaa horumar baynu ka hadlaynaa mustaqbal baynu ka hadlaynaa ubad baynu ka hadlaynaa marka aniga runtii farxad gaara buu ii yahay waxaan leeyahay ilaahay hayna guuleeyo dhammaan jaamacadaha ajaanibka ee halkan iyaguna kasoo qayb galay waqtigayna soo siiyey iyagana waanu mahadnaqayaa mas-uuliyiintana iyo dadka kale ee sharafta badan ee kasoo qayb galayna waanu mahadnaqayaa waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu